السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan asxaabay meel kasto naga daawanaysaan kusoo dhawaada mar kale iyo mid kamid ah barnaamijyada aan idinku talagalnay. barnaamijku waa kii labaad maanta oo khamiis aan idin soo gudbinayno. taariikhduna waxay ku beegantahay 2 bisha Luulyo sanadka 2026. wararkii ugu waaweynaa ee soo dhacay intaynu kala maqnayn ayaynu barnaamijka ku faahfaahin doonaa. Iiraan oo digniin culus u dirtay Mareykanka iyo Israa'iil. haddaba maxay uga digaysaa? haddaba wararkii ugu dambeeyay xaaladaas halka ay joogto barnaamijkan idinku haya. wadahadallada dambe ee Mareykanka iyo Iiraan la isaga kala dab qaadayo waqtiga ay dhacayaan oo la soo mudeeyay goor dhaweyd oo la soo saaray. Trump oo weerar ku qaaday gaashaanbuurta NATO iyo Netanyahu oo loogu baaqay mar kale inuu iska casilo xilka uu hayo kadib markii sanad guuradii 1000 maalmood ay kasoo wareegatay markii Hamas ay weerartay 7 Oktoobar 2023 gudaha Israa'iil. haddaba warbixinadaas ayaynu barnaamijka ku faahfaahineynaa. intaa ku jirnana waxay soo kordhawaan idinla socodsiin doonaa. kulanti wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan kusoo dhawaada mar kale iyo mid kamid ah barnaamijyada aan ku talagalnay. maanta waa khamiis, barnaamijkuna waa kii labaad. haddaba taariikhdu waa 2 bisha Juulaay sanadka 2026. barnaamijkeena waxaanu kusoo gudbinaynaa warxii warar ee soo kordhay intaynu kala maqnayn. haddaba waxaynu ku bilaabaynaa. golaha amniga qaranka Iiraan ayaa goor dhaweyd war rasmi ah soo saaray oo digniin ah. waxaa loo digayaa Mareykanka iyo Israa'iil. haddaba maxaa looga digayaa? haddaba goluhu waxay leeyihiin berito oo Jimco ah waxaa bilaaban doona aas qaran oo weyn oo loo samayn doono hogaamiyihii geeriyooday ee Ayatullahigii dalkaas. aaskaas qaran ilaa wuxuu socon doonaa 9 bisha oo la aasi doono. haddaba si rasmiya waxaa loo soo saaray jadwalka aaska loo sameynayo Ayatullahigii geeriyooday. waxay sheegeen berito oo Jimco ah oo ay bisha ku beegan tahay 3 bisha Juulaay ama Luulyo inay bilaabanayso maalinta la sabootinayo sida ay yiraahdeen aaska. waxaana marka ugu horeysa bilaabi doona oo sabootinaya wafuudda iyo wakiilada dalalka caalamka ka kala yimid ee Iiraan u yimid inay ka qayb galaan munaasabada. markaa kadib waxaa loo furi doonaa shacabka maalmaha Sabtida iyo Axadda. iyaguna waxay ka qayb qaadan doonaan inay u sabootiyaan oo ay u duceeyaan Ayatullahiga. waxaa soo kale la geyn doonaa masallaha la yiraahdo al-Imaam al-Khomeini magaalada Tahraan. markaa kadibna waxaa la sheegay in maalinta Isniinta ah loo qaadi doono Ayatullahiga meydkiisa ilaa Talaadada 2 maalmood la geyn doono magaalooyinka Qum. waxaana la sheegay in Arbacada loo qaadi doono iyana magaalada Najaf oo Karbala ee dalka Ciraaq. kadibna maalinta Khamiista oo taariikhdu ku beegan tahay 9 bisha Luulyo ayaa la sheegay in wadaadka lagu xabaali doono qabuuraha la yiraahdo Marqad al-Imaam ar-Rida kaasoo ahaa imaamkii 8aad ee shiicada la yiraahdo Ithnay Cashariyada meesha uu ku aasay. marka nimankan waxay yiraahdeen jadwalkaasaa noo degsan. wax yar oo qashqashaada haddaan idinka aragno Mareykan iyo Israa'iil adinkaa ka mas-uul. annagu maalmahan ma ka kaftanna yidhaahdeen. Ayatullahiga aaska qaran oo loo sameynayo waxaan ka kaftanna maaha. xataa ilaa shiicada Ciraaq joogtaa meydka loo geynayaa, wuu la soo joogayaa, waa la soo celinayaa, magaalooyin kalaa la geynayaa. magaalada caasimada dadku 2 maalmood ay leeyihiin Sabtida iyo Axadda kadib Qumaa la geynayaa. marka waxaasoo dhan noo socona ilaa 9 bisha laga aasayo. haddii aad qashqashaadaan oo wax dhibaato u geysataan oo aad wax dhibaato markaa dalka ku samaysaan, haddaba adinkaa ka mas-uula. fidnadii meesha ka bilaabata weligeed ma damaysay dheh.
marka hawshaasu marka waxaa soo saaray nimanka la yidhaahdo golaha amniga qaranka iiraan. waaye dhanka kale wadahadaladii iiraan iyo maraykanka waqtigoodii kale ayaa la muddeeyey. waxaa laga dhigay 18 bishan aynu ku jirno luulyo. 18 meeshii lagu qaban lahaa weli lama sheegin, laakiin waxaa leeyahay nimankan shiicada aas ay ku jiraan, hal weego aas iyo waxaan markay kasoo dhammaadaan oo ay nastaan kadib aan wada hadalka galayna. marka hadda waa la muddeeyo, waxaa laleeyahay 18 bisha ayaa la isugu imanayaa. haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyey, wareeg kale oo wada hadallo cusub ah ayaa la muddeeyey, kuwaasoo dhex mari doona iiraan iyo maraykanka. wadahadalladaasuna waxay dhici doonaan 18 bisha julaay ayay dhici doonaan. haddaba marka warar ay heleen warbaahinta ayaa lagu sheegay in maraykanka iyo iiraan wadahadaladooda ay markaasi dhici doonaan 18 iyadoo maalin ka hor lagu soo gabagabeeyey wadahadallo kale magaalada dooxa ee dalka qatar, oo dowladda qatar ay sheegtay waxoogaa horumara in laga gaaray qodobadii ugu muhiimsanaa ee la isku haystay. waaye marka meesha waxaa leeyahay 18 bisha la sugu imaanaya, laakiin hadda wararka soo baxay waxay sheegayaan marinbiyoodka Hormuz in weli buuq ka taagay. iiraan waxay leedahay wax kasta haddaa sheegtaan cidaan aniga isoo marin halkan ma marayso. marka dambe waxay u badantaa laleeyahay in loo tanaasulay oo wararkii ugu dambeeyey qatar laga helay maraykanku inay yidhaahdeen bal inta aan mar kale isaga imaanayn, laakiin adiguna maraakiibta ma dhibi kartaan, ma qashqashaadi kartaan, wax lacaga ma weydiin kartaan inta hawshan u socoto. marka hawshaas iyaduna halkaasay joogtaa oo ay maraysaa. wararka kale ee soo kordhay iyana waxaa ka mid ah ninkii Trump ayaa weerar wuxuu ku qaaday mar kale gaashaanbuurta NATO. waxaa loo ballansan yahay maalmaha soo socda in kulankii NATO uu ka dhaco magaalada Ankara ee dalka Turkiga. ninkan hadduu weerar kusii bilaabay wuxuu leeyahay aniga intaasoo lacagood inaan bixiyo sanadkii, waddan walbana intaas bixiyo, haddana annagu aanan wax faa'iidaaba ku qabin NATO annaga faa'iido dhan ma ku qabin. annagu dal isku filanaan nahay, dhaqaala haysta, ciidan haysta, hub haysta, wax kasta haysta, waa ay lacagtan u bixinaynaa. dalalkan annagu waxba kama faa'idin. dagaalkii dhowaa weli odaga cuqdadiiu qabaa iiraan oo ay loo soo gurman waayo, dalalkii NATO imaada intay u imaan waayeen. marka boggiisa social media ayuu maanta wuxuu kusoo qoraa wixii sirta ahaa ee waddan walba oo maaragtay NATO ku saabsanaa. wuxuu leeyahay aniga intaasaa bixiyaa, faransiis intaasaa bixiyaa, ingiriis intaasoo bixiyaa, wadamo kale oon waxba bixinaa jiraan. sidee marka waxa kanu marka waxna kama faa'iidne uu leeyahay. marka ninkan marka ugu dambaysa waxaa la leeyahay NATO isaga ayaa sababsan doontaa, wuu burburi doontaa laleeyahay. haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyey bogga internetka uu ku leeyahay ee la yidhaahdo True Social ayuu soo dhigay Trump warbixin uu leeyahay. wuxuu yidhi maraykanku wuxuu lacag badan ku bixiyaa gaashaanbuurta NATO. haddaba wuxuu yidhi marka loo eego wadamada kale annaga ayaa ugu badan bixinta lacagtaas ilaa hadda. marka si uu maraykanka u ilaaliyo dalalkaas isagoon wax faa'iidaa ka helaynin arrintaas, waxaynu bixinaa 999 bilyan oo dollar oo maraykan ah. waxaana sidoo kale boqortooyada midowday ee ingiriisku ay bixinaysaa 9.5 bilyan oo dollar. faransiiska wuxuu bixinayaa 66.5 bilyan oo dollar. talyaaniga wuxuu bixinayaa 48.8 bilyan oo dollar. Poland waxay bixinaysaa 44.3 bilyan oo dollar. wuxuu sidoo kale sheegay kuwo kale oo ay ku jirto Jarmalka aad bay uga hooseeyaan inay bixiyaan lacagahaas. wuxuuna tilmaamay inay arrintan u tahay wax lagu qoslo.
واي marka wuxuu leeyahay jarmalka lacag ay haystaan haddana inay lacagahaas dalalkaas ay bixinayaan inay bixiyaan ma rabaan laakiin annaga waxaan bixinaa 999 bilyan oo dollar aan bixino leeyahay ingiriis aan ugu soo xigo 9.5 bilyan lacag oo bixiyay faransiiska wadada asaas oo kala baday laakiin dalal kale waxa jiraan waxba aan bixin marka wuxuu leeyahay anaga lacagtaas aan bixinayno maxaa ka faa'iidnaa nimanka ayaga ku ilaalinaa anaga ilaalin ma u baahanahay Mareykan hadana may anaga isku filan marka nimankan ayagii aan ilaalinaynay hadana lacag ku sii bixinaynaa ilaalintooda maxaa anaga ka faa'iideynaa wule marka ninkan dagaalka NATO uu kaga qayb galayo shir madaxeedka soo socda maalmaha soo socda Ankara hadda ayuu sii tuuray NATO markii halka timaado dagaal iyo asaga in la barbariyo rabaa marka sheekada waalana iyaduna socod qodobka kale ee barnaamijka aynu ku soo qaadanayna wuxuu yahay ninka la yiraahdo Netanyahu ayaa hadda lagu kacsan yahay waxa leeyahay 1000 maalmood ka soo wareegatay 7 Oktoobar 2023 markii Hamas ay weerar ku qaaday gudaha Israa'iil 1000 maalmood kadib Hamas way nooshahay hubay haysataa Iiraantii awlaadeedii ay kamid ahayd way nooshahay gataaleeda waa haysataa gobolkii wax iska bedelay ma jiraan Xisbullah wali way nooshahay marka wixii aan noo sheegaysay dagaalkii aan galisay waana rafaadisay maxaa soo kordhay marka warniyahu is asili taagin waa qolka mucaaradka abaabulay moogtay haddaba markaan adeeto soo wararkii ugu dambeeyay ayadoo la soo gaaray waqtigii 1000 maalmood ee ka soo wareegatay 7 Oktoobar markii la weeraray Israa'iil ayaa waxa soo baxaya baaqiyo loo jeedinayo Netanyahu oo Israa'iil ka imanaya kuwaas oo ah inuu is asilo oo uu meesha ka tago inuu is asilo ninku baxaama ninkan hays asilo iyo nin maxkamadu daba taagan tahay musuqmaasuq loo haysto maalinka xukunka ka dagan nabla in la dhaha ogyahay baasha uu kumitida doorashada kalena waa soo galaa meel la aadaba haddii laga adkaado banaanku ku soo dhaco waa gooni laakiin sida uu isu basarin karo ayuu odaga isku basarinayaa leeyahay barnaamijkayga waa naga tahay taan markala kulmayno asxaabay meel kastoo aad joogtaan nabadgelyo